eedo nabigeena sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisu wuu caawin jiray shaqada guriga idilna wuu ka qaban jiray inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tani waa Muniish Mustaf ama Muna Mustaf waxay saacado ka hor ku geeriyootay highwayga u dhaxeeya wadada Nairobi iyo gobolka Naivasha mar dambe ma maqli doontaan codkeeda mar dambe ma arki doontaan muuqeeda dadkii taageerayaasheeda ahaa oo dhan Muniish Mustaf waa geeriyootay waxayna aaday meeshii loo badnaa geerideeda dad badan ayaa aad iyo aad u argagaxay baraha bulshadana ayay qabsatay saacadihii la soo dhaafay waxa kaloo la geeriyooday wiil kale oo gaariga la saarnaa oo lagu magacaabo Zakariye asaga xog badan lagama hayo walow uu ka tirsanaa dhalinyarada magaaladaasi Nairobi ee baraha bulshada caanka ka ah inkastoo aan si aadaba loo aqoonin taariikhda nololeedkiisa laakiin Muniish waxay ahayd gabar wariye ah aktarad ah jilaa kuna fiican riwaayadaha wacdiga ah ama waanada ku saabsan ay soo bandhigi jireen kooxdeeda Somali React Muniish ifka mar dambe laguma arki doono muuqaalka aad daawateen waa muuqaal ka mid ah iyada iyo kooxdeeda ay ku wacdin jireen dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ahayd gabar aad u firfircoon oo ka dhex muuqata bulshada xaafadaasi Islii ee dalkaasi Kenya kooxda ay ka tirsaneed ee Somali React ayaa ahaa koox ummadda dhalinyarada Soomaaliyeed ku waaniya wanaaga xumaantana ka reeba laakiin u matala qaab jiliin ahaan waxayna ku turjumi jireen luqadaha Ingiriiska iyo Soomaaliga iyo mararka qaar xitaa Kiswahiliga waxayna ahayd ayna ku soo caanbaxday Muniish Mustaf riwaayadahaasi eedo nabigeena sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisu wuu caawin jiray shaqada guriga idilna wuu ka qaban jiray anaga haddaan Soomaali nahay waxaan aaminsanahay rag inaysan cunto karsan karin shaaxna aysan karsan karin waxna aysan qabsan karin taasna waxay ku imaad inaan isku qaladno diinta islaamka iyo dhaqanka anaga aan leenahay haddaan Soomaali nahay labadaasna waa laba wax oo kala duwan ina sidaas u fahantidaa ay jeclahay waa kana wiil goob jooga ahaa oo la socday Muniish iyo Zakariye markii ay ku dhimanayeen highwayga u dhaxeeya wadada lagu magacaabo Naivasha Highway إنه أكسيدنت قاله من نقولين مركب مشتم جاري جرا ونقد حدي لسيدو كجاري فولا فول كل جاري وين فولا تكمل رقم جاري نروح فولا على سيدو كعمر قدام اللوجا إنه قبل ولا شيء يويل ولا الكنا إنه كل جاري ذا وواحد كلامنا اللي شيء أكسيدنت وزايد جاري جروح فولا جاري وين جاري جرنا استحق لين ساسنا مسحق جنكر إيه كل حجر وجارياش الكلام اللي عطينا waxaynu ka cudur daaranaynaa inayna soo bandhigi karin muuqaalka dhabta ah ee la duubay iyagoo gaarigooda gaari kale uu ku burburay labada wada gaarina ay wadada ka dhaceen gaariga kale ee ku dhacay ayaa ahaa gawaarida nooca loo yaqaano basaska dhawaaweyn halka Muniish iyo ay wateen Zakariye iyo koox kalena gawaarida yaryarka ee raaxada labada gaari ayaana isku dhacay waxayna ka dhaceen gabiga wadada iyagoona dhulka ku wada dhacay Muniish Zakariyana halkaas ayay ku geeriyoodeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur naf waliba waxay dhadhaminaysaa geerida qof walbana wuxuu shaqeeyay waxa laga abaalmarin doonaa maalinka yawm al-qiyamah qofkii naarka badbaadaa oo janno galaa ayaa liibaanay nolosha adduunyadana ma ahaanin mataac ama raaxaysi kada ah ma garanaysid aniga hadlaaya iyo adiga i dhegaysanaya meeshana loo soo joogo Muniish saaka iyadoo faraxsan ayay gurigeeda ka baxday waxayna rajaynaysay inay soo noqoto ay ku soo noqoto gurigeeda iyadoo nabad qabta arrinka kale Muniish waxay guursatay midhow 18 November sanadkii 2020 waxay guursatay muddo laga joogo bil iyo dhowr bari
waxayna ku soo bandhigtay arrinkaasi guurkeeda barteeda facebooka ay ugu qoran tahay muniish mustaf. wiilkay isguursadayna waa wiilkan sawirkiisa idiin muuqda. wiilkan dhalinyarada waxaan leenahay sabir iyo iimaan allaha kaa siiyo xaaskaaga oo ku geeriyootay shilka maantay. cawada waxay u tahay gobol madow dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Kenya gaar ahaan xaafadda Islii iyo dhalinyarada isku kooxda ambahwadaaga ahaayeen ee qaarkood youtuberada iyo tiktok caanka ka ahaa ee xaafadda Islii magaaladaasi Nairobi. nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi waa uu ka ducaysan jiray mowtul qaflaha waxa uuna dhihi jiray allahumma innii acuudu bika min zawaali nicmatika wa taxawuli caafiyatika wa fuj'ati niqmatika wa jamiici saqadika. oo micnaheedu uu yahay ilaahu waxaan kaa magangelayaa inay iga zuusho nicmadaada caafimaadkaygana uu zuulo. waxaan kaloo kaa magangelayaa inaad isoo kadisid. waxaan kaloo kaa magangelayaa caradaada oo dhan inay iskugu kee imaato. inta midda afaraad oo ah inaad isoo kadisid oo micnaheedu yahay mowtul faj'aha. mowtul faj'aha waxaa loo yaqaanaa moodka qofka intuusan dardaarmin ama aan la ogeyn inuu dhimanayo isna durbadiiba lagu soo sheego in lagu soo booday qaab walba ahaato ama qaab walba ha u dhinto ama sida walaasheen oo kale ha ku dhinto shil gaari iyo wixii la mida. ka dardaarmi jiray rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayh in ilaahay laga magangalo mar walba waa uuna ka ducaysan jiray maxaa yeelay waxaa dhimanaysaa adigoo aan soo dardaarmin. mararka qaar xitaa waxaa dhici karto adigoo xumaan suubinaya inaad dhimatid laakiin moodka kale ee kugu imaada adigoo jiran ama qaab kale ama dagaal ku jira ama wax kale u dhintaa ee aad og tahay inaad ku socotid waddadaasi waxaa laga yaabaa inaad dardaaramtid. waxaa kaloo laga yaabaa inaad isdaba qabatid haddaad xumaan suubinaysay. maantay markii sheekadaani dhacday durba waxaa fankii iyo fanaaniintiiba iskaga baxay walaasheen qaali cabdi qaaliladan loo yaqaano iyadoona ku dhaaratay inaysan mar dambe geli doonin fanka Soomaaliyeed. waxay sheegtay in gabadhan dhimatay ee muniish ay xalay isla joogeen meel aroos ah. waxa qaraacani u noqotay oo aad uga naxay oo aan aad uga xumaaday waxa waaye xalay iyo meesheeda joogtay waliba garabkayga ka ciyaaraysay maantana la oofsaday. u wada duceeno walaasheen muniish mustaf iyo zakariye oo maantay ka faaruqay adduunyadan dhibka badanna. ilaah ayaa ugu baryeynaa in qubuurtooda uu waasiciyo waxaana la aasi doonaa maalinka beri ah laguna aasi doonaa qabuuraha weyn ee Langata ee dalkaasi Kenya. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ducadiina hoos ugu soo qora walaasheen iyo walaalkeenba. Maxamed Alfa salaamullaahi calaykum.